daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaaban oo aanu la yeelanayno Cabdiweli Cali Dembil oo ku magac dheer Abwaan Jawaan ku soo dhawaw wareysiga waa maasantahay wariye sham ugu horeyn su'aasha ugu horeysa aan u baahanahay inaan ku weydiiyo xilima ayaad ku soo biirtay abwaanimada ma wax lagu soo biiraa mise waa wax qofka bilaadan ku dhasho abwaanimadu waa hibo ilaahay bixiyo way maaha qofku wuxuu acting brain oo jili karo waa hibo qofka ilaahay uu siiyo waana nooc shaacir ah oo ilaahay qofka uu ilhaano u siiyo maaha qofku wuxuu jeebkiisa kala soo bixi karaa ama uu samayn karo abwaane goorma dareentay inaad tahay abwaan dareen ma aha dareenku abwaanimo ma aha xilliga qofka bini aadamka ah uu tusaaleyn karo inuu sugaanta wax ka tilmaami karo waa xilliga uu wax la kulmo ama uu arko ama loo soo gudbiyo sidoo kale waxaa tahay siyaasi Soomaaliyeed saaxadda siyaasadda goormaad ku soo biirtay iyadana siyaasadda waxaan ku soo biiray taasi waa waqti cayiman 2010kii xilligii doorashadii Jubaland State taasoo aan ku cadeeyay barta internetka shakhsi Soomaaliyeed oo Jubaland ka tirsan inaan ahay doonayana deegaankiisa inuu wax ka helo iyadoo waliba aan kala kulmay justification been abuur fara badan oo Soomaalidu inta badan qabiil bay wax ku raadiyaan xisbi iyo interest bay wax ku raadiyaan baashay xitaa qaab diineed baa la geliyay oo shaati diineed baa loo geliyay oo xitaa qofku waxa been abuur baa laga sameysanayaa waxa leeyahay ninkani nin Jubaland dhashay ma aha nin ehludiina ma aha nin qabiilka taageersan ma aha waxyaalo badan oo aan maanta xitaa doonayn inaan hoos u sii gudagalo aan kala kulmay Soomaalidu waa inta ku garaado waxay taqaanaa qofku inuu dhowr qabiil intuu qada u kariyo uu hadafkiisa siyaasadeed u sheego qabiilna caayo midna xoogaa jawaan lacag siiyo ma yaqaanaan internetku inay saxaafad xor tahay oo qofku qaab documentary oo qoraal ah waxa uu Soomaaliya ka dhex doonayo inuu soo cadeyn karo abwaane ma jiraan wax xiisa aad qortay oo ay fanaaniin qaadeen waa jiraan dhowr heesood oo aan u dhiibay fanaaniin Soomaaliyeed oo teenage da'yar ah heesahaas waxaa ka mid ah adduunyada dhibaatooyinka ka farq badan ah hees ka farqiya yaa ku luqay waxaa ku luqeeya iqriyari fanaanad Soomaaliyeed oo ku sugan Islii abwaan intaad ku jirtay siyaasadda maxaad kala kulantay oo dhib ah wallahi niyo lama soo koobi karo mad Soomaaliyeed masiibo qaran baa ku dhacday qaab qabiil baa la isu culaadiyay qaab ehel oo jifo hoos la isu culaadiyay qaab deegaan baa la isu culaadiyay ma soo koobi karo oo tilmaam kuma sii karo kuma oran karo waxaasan kala kulmay laakiin ummadda Soomaaliyeed baa witness oo markhaati oo ogaan karta qofka qaabka loo culaadiyo qofka aan loo culaadin dadka inta badan waxay kugu wacaan madaxweyne qaabkii kugu baxay magacaas Soomaalidu waa inay ku garaado qofka hadii ay wax iqtisaad oo dhaqaalaha ka waayaan waxay ku qiimeeyaan qofkuba inuu magaca ku qanacsan yahay in loogu yeero ama abwaan ku qanacsan yahay ama madaxweyne ku qanacsan yahay laakiin waxa ka maqan dariiqii justice-ka cadaaladda in dadku ay interview dadka la yeeshaan qofkana loo tilmaami karo title-ka uu sheegtay inuu ku inuu yahay iyo inuusan ahayn laakiin wax science oo ay sameynayso qofku inuu madaxweyne kugu yeero adna aad isu aragto inaad ku qanacdaa ma jirto meeshan deegaan baa laga soo bilaabaa Soomaalida laga soo bilaabaa CV-ga qofka iyo taariikh nololeedkiisa la raadiyaa dadka shuhada ul ardiya witnessa oo tilmaami kara qofkani in wax la siin karo iyo aan la siin karin inta joogta caalamka maxaa kugu yaabanaa oo la kulantay wallahi niyo waxyaalo badan baa igu yaabanaa oo hadeer saxaafadu aysan xitaa soo koobi karin bulshada Soomaaliyeed aan hor dhigi karin for example tusaale marka aad soo qaato adigoo wariye Shaamul hor fadhiya oo magacaaga laga yaabo in aad bulshada caalamka iyo deegaan ahaanba sumcad aad ku leedahay oo aan rabo magacaaga inaan ku shaqeysto adoo nool magacaagii adoo nool inaan ku shaqeysto waa wax ummadda Soomaaliyeed ka suurta galay waana caqabadaha jira loona baahan yahay in dadka loo iftiimiyo ugu dambeyn maxaad kula dardaaranaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa xukuumadda deegaan ama federaal ka jirta
وتايتل كوجو سرية هذا هو ينوي هاي شخص كست أو سوماليات وموادنا أما الدجان كسر كذا أما فدرة كسر كذا حق إنه ليه إنه يشرح ومد سوماليات وكل حاسب ومد السوماليات بعنا كلا خلي يسقفك وحلو يمكن كري يقف حلو يمكن aad baa u mahadsantahay daawadeel waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa wareysigeeni gaabnaa oo aan la lahayn cabdiweli cali dhimbil abwaan jawaan mudane aad baad u mahadsan tahay ما سنتهي ولا شيء intaan barnaamijka xigu kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu